kalsoonida loo hayay haleeyay ammaanado hogaankii la aamine kalsoonida loo hayay haleeyay ammaanado harkii baad nala lunto hawshii lagu igmaday hubaashi waad gabto ammaankii baad hodee baad nala lunto hawshii lagu igmaday hubaashi waad gabto ammaankii baad hodee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنقذ قلنا لايفكا وحاوي وحق حساسية وكسا أبسن محاكا السعودية جيسك أفريكا إثيوبيا محيطة بحصتها مركا حقتانا ينسو قد بليا إلهي كومسا مديدي كل يتبع بلوين قدوه يتبقى الحياة الدونتال وحاوي دولة مريكا أي دولة إمارات كعربتا دولة مريكا أي دولة إمارات كعربتا كوكونا إساي إني 6 بليون أو دولار سيسو دولة إثيوبيا دولة مريكا أي دولة إمارات كعربتا كوكونا إساي إني 6 بليون أو دولار سيسو دولة إثيوبيا إذا 1 بليون أو دولار لو شوي بنك قدحي لابد بليون أي كلمة مع القش يكون سميني إمارات كعربتا maraykanku lacagtaas ama isaga soo si qalooc soo bixiye ama imaaraad ka dhameeyay Itoobiya siiyaan wuxuu ka watay ama uma taqaanaa ula jeeday siyaasad ahaan in hawlaha dawladda Shiineeska ama Chinaha ay ka wadi Itoobiya mashaariic asiga istaagto oo dawladda Itoobiya ay dalkeeda ka saarto China maadaama uu ku sii fidayo ku sii baahayo maxay yeelay baahi qabeen lacagii qalaad iyo hoos u dhicii iyo dhaqaale daradii iyo wixii 3 bilyan oo dollar lacag sahlan ma aha marka enough China out of Ethiopia in la yiraahdo ayay mataqaana ku ballamay ra'iisul wasaaraha cusub Abiy Ahmed wayna dhacaysaa taas waa arki doontaa imaaraadku lacagta 3 bilyan iyo waxay ku bixiyeen in dekedaha Soomaaliya ay si dhib yar lagu wareejiyo way ku hantaan in dalka Soomaaliya laga saaro dawladaha Turkiye Qatar iyo Iran in laga saaro ayaguna qorshahooda tahay oo farmaajo laga saxiixay inuu Turkiye ama Turkiga iyo Qatar iyo Iran danahooda oo kulli mamnuucayo mashaariicda dekeda Soomaaliya ee dekeda Muqdisho iyo airportka uu ka wareejinayo marka inuu go'aanka hore ee Qatar kula safnay ka soo laabtay ayaa laga saxiixay taasna waxaad arki doontaan maalmaha soo socda Abiy Ahmed iyo farmaajo waxay ku heshiiyeen Ethiopia Soomaaliya noqdaan sida United States of America oo kale sida United States of America dalka Mareykanka kaleento in noqdaan ama United Arab Emirates sida Imaaraadka oo kale in noqdaan in Soomaaliya laga saaro dawladda Turkiga Qatar sidoo kale xiriirka loo jaro dawladaha Qatar iyo Iran in afar dekad lagu wareejiyo dawladda Ethiopia oo maalgashi ku samaysato in afar dekedood mataqaan lagu wareejiyo dawladda Ethiopia oo maalgashi ku samaysato dekadaas waa kubee waa dekadaas waxa weeye waa Berbera waa Boosaaso waa Hobyo waa Braawe muddo kadibna waxa imaan doono in DP1 lagu wareejiyo dekeda Muqdisho dekeda Kismaayo mataqaana iyo qorshooyin noocaas ay imaan doonto oo dekeda badan mataqaana ay Kismaayo Muqdisho ka mid tahay waxa la wareegi doono DP1 waaya in ilaalinta badda Soomaaliya qodobadii ku shaqo in ilaalinta badda Soomaaliya iyo dekedaha lagu wareejiyo ciidanka badda Ethiopia oo adeegsan doona shirkad loo bixiyay Ethiopia Shipping and Logistics Service Enterprise shirkadda Ethiopian Shipping and Logistics Service Enterprise ayaa la wareegaysa mataqaana badda Soomaaliya amaankeeda
haddaba wejiga koowaad ee qorshihii imaaraadka iyo maraykanka ay wateen waa hirgalay ee arrimaha soomaaliya wuxuu ra-iisul wasaaraha etoobiya toddobaadkan u dhoofayaa wuxuu ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed toddobaadkan u dhoofayaa eritrea wuxuuna u xaqiijinayaa madaxweynaha eritrea inay ka tanaasuleen dhulkii laysku haystay sidaa darteed wuxuu ka codsanayaa afwaaki in uu aqbalo maalgashiga dowladda imaaraadka carabta ay ku maalgashanayso dekedda casmara haddii uu madaxweynaha eritrea afwaaki aqbalo arrintaas haddii uu aqbalo arrinka hadduu aqbalo madaxweynaha mataqaana eritrea 2 toddobaad kadib waxaa eritrea ka degaya oo casmaro joogaya 2 habeen dhaxasugaha boqortooyada imaaraadka carabta ayaa tegaya laakiin toddobaad gudihiis waxaa la hubaa ra-iisul wasaaraha etoobiya inuu ka degayo casmara ayaa la hubaa waana arki doontaan koleytaba haddaan isla joogno imaaraadka oo dagaal xoogan hadda kula jiro dowladda jabuuti ama jamhuuriyadda jabuuti ama dalka jabuuti qorshaha ugu weyn ee ay wataan waxaa weeye inay dekedaha geeska afrika la wareegaan kadibna ay xakameeyaan dhaqaaqa ganacsiga oo ay curyaamiyaan dekedahaas oo ay muddo saa u haystaan qorshaha imaaraadku ay wataan waa qorshahaas laakiin arrinta yaabka badan ee halkaa iga soo dhex baxaysa waxaa weeye in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu dhoofayo toddobaadkan oo eritrea u dhoofayo kadibna uu madaxweynaha eritrea u sheegayo in dhulkii weynaa ay isku hayeen iyo deegaanadii istaraatiijiga ahayd ee etoobiya ka tanasushay ay uga tanasushay eritrea halka uu ra-iisul wasaaraha etoobiya damaaciyey uu madaxweynihii soomaaliya ninka ku magacawnaa ka soo dhammaystay in soomaaliyadii weyneed ee xeebta ugu weyn iyo badda ugu weyn afrika lahayd inay etoobiya ay laqdo oo etoobiya ay ka mid noqoto markuu farmaajo u yimaado maxay ahayd inuu yidhaahdo dhulka aan isku marowsannahay qadiyadiisa aan ka wada hadalno dhulka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed degaan ogolow inay soomaaliya ka mid noqoto ood ka tanaasushaan sidii eritrea madaxweynaha eritrea ugu dhegan yahay qadiyadaas oo kale ayay ahayd laakiin nasiib darro ma dhicin maxaa dhacay in soomaaliyada dhammaadba etoobiya la siiyo la yidhaahdo waan ka mid noqonaynaa marka waxaa isweydiisaa keliya ra-iisul wasaaraha etoobiya eritrea ka degayaa casmaru tegayaa madaxweynaha siyaasi afwaaki la kulmaya wuxuu leeyahay dhulkii aan isku haysanay qadiyad ahaan etoobiya way ka tanaasushay idinkaa iskale laakiin xamaroo tegey muxuu leeyahay this my second country and will unite it like United States of America like United Arab Emirates fiiri wasiirka warfaafinta hadlay micnaha hadalka soo u jiro wasiirka warfaafinta dowladda farmaajo ee muqdisho ka talisa ayaa hadlay wuxuu leeyahay markuu hadlay wuxuu leeyahay waa daahir maxamuud geelle wuxuu leeyahay hadalka soo u dhigay ra-iisul wasaaraha etoobiya ma aha ra-iisul wasaaraha etoobiya wuxuu ka hadlayaa in soomaaliya etoobiya ay u midoobaan sida United Arab Emirates sida imaaraadka oo kale inay u midoobaan sida United States of America sida maraykanka kale inay u midoobaan sida European Unionka inay Europe oo kale u midoobaan taasoo ka hadlaya ayuu yiri taas macnaheedu maxay tahay marka warkii ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo warkii wasiirka warfaafinta farmaajo uu iskeenayaa oo soo isku keenayaa hadda imaaraadku hal calan bay leeyihiin hal baasaboor maraykankuna hal calan iyo hal baasaboor bay leeyihiin imaaraat waa dal United Arab Emirates waa dal United States of America waa dal laba dal ma kala ah laakiin Europe ayaa intaasoo dal ah weli xuduuduhu siday yihiin hal baasaboorna male hal calanna male dal kastaba calankiisu leeyahay laakiin waxyaabay ka midoobeen marka warkaa wasiirka sheegay farmaajo warfaafintu qaabilsan iyo warka ra-iisul wasaaraha etoobiya uu sheegay way iskeenayaan
رئيس الوزراء إثيوبيا إنه أنتم مصيب ماذا كل أصدقائي سؤالادو one strong nation كديجينا الصومالي إثيوبيا يقولادو هذا إيش كسهل معها لكن وحوي هذا الأولاد دقوي هذا الأولاد دقوي طلعت هشيس كمركات في الصو هشيس كوه عمد كونفديشيال وقصر هي مثل هشيس عالمي الله دقي ولا مدحوي لا هجامية مدحوين الوزراء كاستحيلين أو صحافة الله شيء طلب كمان هشيس كوه ليه وإن لهرجليا هشيسيد هرب لو جاري هشيسيد هرب لو جاري مكوب دجال أوجياشي حلي جديا مكوب حلي عبد الله يوسف محو هشيس كاسية وقلب حساسي أو قتروي قلب كلا وحولي هاي وإن صومالي إثيوبيا أي أقبلان أي أقلادان وحصلوا أقلادين إن mataqaanaa qonsulido consulars laga furo gobolada dalka tusaale Soomaaliya jijiyo ka furato consul inay Tigray ka furato hada Soomaaliya tii ku tira sabab bilkeeda bixila adahay marka qodobkaas wuxuu u dhacayaa macnaha in la xalaaleeyay qonsulidihii sirdoonka Itoobiya ay ku lahaayeen mataqaanaa Garowe iyo Hargeysa iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo Jowhar iyo Galmudug iyo si ay goboladaas ay iyagu heestaan u sii maamushaan marka qodobkaasna qodob xasaasi weey waxa weeye hadal dhamaantii anu in baa lay waxa soo doona macluumaadkan si haduu been yahay haduu run yahay farmaajo rasuulaysu waxay Itoobiya u saxiixay in la wareegto 4 dekado oo kala ah berbera Boosaaso Habiyo Baraawo qodobkaas waa lay waxa soo doona farmaajo rasuulaysu waxay Itoobiya u saxiixeen inay ciidanka militariga Itoobiya la wareegaan amaanka fila Soomaaliya dekada Muqdisho iyo Cadda International Airport waxay sidoo kale u saxiixeen inay 1500 oo askari geeyaan Baraawo si ay amaanka shabeellada hoose iyo dekada Baraawo la wareegaan farmaajo rasuulaysu waxay Itoobiya u saxiixeen inay ilaalada badda Soomaaliya la wareegto ciidanka badda Itoobiya oo dhan 8,000 oo askari waxay ciidankaas ku howlgalayaan magaca loo bixiyay Ethiopia Shipping and Logistics Service Enterprise oo loo soo gaabiyay ELSLE shirkaddan waxa maalgelinta iskale Imaaraadka Carabta waxayna ilaalin doontaa 4 dekedood iyo badda Soomaaliya farmaajo iyo rasuulaysu waxa si horumarisa loo siiyay lacag dhan 200 milyan oo dollar taasoo dawladda Imaaraadka ay bixisay lacagta waxa loo siiyay inay ku laalushaan odayaasha dhaqanka culumada dhalinyarada siyaasiyiinta iyo xildhibaanada haddii ay dareemaan kacdoon dadweyne waayahay 2 sano kadib haddii farmaajo iyo kooxdiisa ay ku soo laabtaan kursiga waxay ballan qaadeen inay ka wada shaqayn doonaan sidii Itoobiya iyo Soomaaliya looga dhigi lahaa hal nation hal qaran حقتان واتي وحسين عيدين 10 سنة كهر شيء أهور سنة أو ديار سنة واتي من السنة ويري سومالي وان قلي وكو قول درستي وكو جوي لكن مركا عن كل لابان دونا مركا لابات كو مجيبي دون ساسوري من السنة مركا أنا وحياتي إنو كو جيبي دونا مر لابات برشاها السماء السنة إنو قسارة كين دونه لكن إيه وحي لا tahay inay ku guulaysan doonaan Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya wuxuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u ballan qaaday inuu maamul goboleedyada madaxweynayaashooda dhammaan hoos keeni doono maamulkiisa Muqdisho ka taliya heshiiskan markay ka saxiixdeen markiiba waa baxayay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya asaaban ku degan wuxuu farta ka saaray dhaxal sugaha boqortooyada Imaaraadka Carabta isla markiina wuu duulay isagoo maalintii Jimcaha sii joogay qof kasta Soomaaliya waxa la rabaa inuu is weydiiyo isagoo is wareerin haddii dalaalnimo lagu siiyay Itoobiya 1 bilyan oo dollar oo bangi dhexe loogu shubay 2 bilyan oo dollarna loogu maalgelinayo dalkooda mashaariic looga fulinayo halkaas qaad dhigaysta si fiican u maqlo qof kasta Soomaali si fiican u maqlo وآيهاي ومستقبل كاغي
وإنا مسكح هذا إلهي وحكوسي أنا كشقيس وأنا كشقيس مسكح هذه رسالة إثيوبيا أما دولة إثيوبيا دلال نملوسيا $1 billion $2 billion الله شيء إن دلك هذا لوجو مال قلنا $6 billion كوي دلك الصحيحي إثيوبيا إمارات إني قاعتان هي قد قياسي سنة السي محمد عبد الله فرماجو يحس على غيره إلا السي إمسا قياسي سنة هذه كوي دلالك $1 billion السي $2 billion دلك لو هرمرنايو $6 billion لعاك كنت على معه من هلعك هلكا كدو أما كنت حالة ما هذه إثيوبيا $6 billion أي شيء ودلال لمن لو سيي كوبي دلك الصحيحي يدكلها الصحيحي مثال السيي هلكا سوي مش سؤال صوت وحال السيي ومعنى هذا وحاوي محمد عبد الله فرماجو يا حسن علي قيره لعكو في المانتا وي هستا دي حلقه تغا لعك غرانتي او كو في المانتا وي هستا ماشي لو مريي ماشي لو ديغي إذا لوغو حولي تاسي أنيقو مؤوي لكن تنهو حاوي فرماجو عاو وسكتاقو في الصوماليا لعكو في لنبو هستا وحكا لماشي يالو حاوي وحكا لماشي يالو حاوي دولة تركيا iyo dawladda Qatar iyo dawladda mataqaana Iran sidaas hal ma ku tagayaan waa dawladda dhaqaalaha haysta gaashaandhig haysta awood ku leh gudaha Soomaaliya ka shaqeynaya siyaasiyiin ku xiran mataqaana sida Turkiga kale NATO waa dawladda ugu awoodda badan farmaajo iyo qayre ma dhihi karaan Turkiga habaxo oo sidaas hal ma ku baxaya Turkiga habaxa shacabka Soomaaliyeed ma yeelayaan انت aniga ogahay carabuhu wad ogtii hadda intay Sacuudiga tageena leeyahay dalka Jordan miyaa ma qaana ayaa dhaqaalihiisa hoos u dhaceen inta $1 bilyan loogu deeqo Soomaaliya wiil $100 milyan uma deeqin anu intaan ogahay waxa weeye Turkiga Soomaaliya wax wanaagsan bay u qabteen waa dawladda qura ee isbitaal iyo wado iyo wax muuqda iyo ciidan la tababaray intaba si ficil u sameysay waa dawladda qura Turkiga ee Soomaaliya xilli ay liidatay u soo gurmatay ayadoo saaxadda caalamka ka sii dhacayso ku soo celisa masraxa caalamka waa dawladda qura ee qayamka maanta ay dawladnimo Soomaaliya taagan tahay ee loo kala ordaya gaasiisa waa Turkiga weey marka anigu ila ma aha in Turkiga sida fudud oo farmaajo inta u qabto madaxa uu ka tuuri karo Soomaaliya ama Muqdisho taasi waa taa dadka telefoonka meesha ku qoray ay dadka iga soo wici karaan oo in yaro kooban 5 daqiiqo gudahood ayaa la rabaa inay fikrado ku dhiibtaan sidii u arkaan hadii ay suurtagal tahay telefoonka la soo wici kartaan afiri inay i shaqeynaan kale sorry abaa soo wici maan arkaynin dadka telefoonka waa iga soo wici kartaan saa fikradeen u dhiibatiin قديدة لبعض الرواية عن أنت كيف يستوك هذا الحاوي بدأ الصومالية تعودي بدأ الصومالية سكة استشعرت هلو قليل وحكا استوى بينها نوشيو أرتو فرماجو نيك اللي هذو يحسن غير لاوحي آمسيهين هالقديد حدانا قديد داسي حلو هلين الشعب الصومالي أنا حلو هلين وح دال كاني وح لو تشدورة من نقدورة waxay aaminsan yihiin waxa weeye Soomaalidu waa qeyra Japan waxay hadlaan waa 5 maalmood iyo 10 maalmood waa Ethiopia oo saan waa la baxsh dalka in hidoonaan kadibna well down waa okay xaalkooda kadibna xaalka was ka caadi saas ay u aaminsan yihiin marka shacabka Soomaalida ayaa la doonayaa in ay ka dhabeeyaan in mataqaanaa aysan wax caadi iska ahayn inaysan wax caadi ahayn si ay u haystaan inaysan caadi ahayn inay ka dhabeeyaan rabaa mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed oo san
dalka la iska gadan karin. hadday ka dhabeeyaan wax weyn baa dhacay. halow qofka ugu horreeya halow wax weyn baa dhacay hadday ka dhabeeyaan. hadday ka aamusaan sidii la rabo waay. shalay beriraa la weeraray waa laga aamusay. jili baa dad lagu duqeeyey oo lagu xasuuqay waa laga aamusay. haanta dheer baa dad lagu xasuuqay waa laga aamusay. mataqaanaa guriga cabdiraxmaan ashkuura la weeraray waa laga aamusay. dad baa lagu dhameeyey waa laga aamusay. guriga mataqaanaa cabdi qaydid baa la weeraray waa laga aamusay. halow haye dooda ka qayb gal. life aa ku jirtaa. dooda ka qayb gal aan kuu furo dadka shacabka. igu jirsaa igu jir. haye ka qayb gal dooda hore u soo qofka jooga Sweden ka hormar. si fiican aan kuu maqlaa ma garan. waayahay haye dooda ku soco. arrintii badda Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliyeed iyo kulli farmaajo Itoobiya u saxiixay bal nooga waran xaalkaas. waxa weeyaan farmaajo waxa weeye wuxuu ahaa lahayba ninka la yidhaahdo ra'iisul wasaaraha ayaa arrinta si kale u bedela ma garan. waayahay waxa weeyaan runta markaan ka wada hadalno farmaajo waxa weeye markuu ra'iisul wasaaraha ahaayna dib markuu madaxweynaha dib malay xasan cali khayre ayaa wuxuu arrintii u bedelay arrin 54 laga soo tago arrin qabiila ma garan. waayahay marka hadda qabiilkiisa asagoo ku socdo waa nin aan dowladnimo rabin laakiin wuxuu ku tala jiraa dalka iyo dadka inuu isku baabi'iyo ma garan. waayahay marka taasna waxaa daliil ku ah wixii laga soo tegay iyo dabada hayaa waxa weeye qolad kasta duulaan wax uga qaadaa maahane af Soomaali inuu kula hadlo oo la fariisto ma rabo. qolo mucaarada iyo qolo maxaafida inuu kiciyo oo xabad ku muquunsho rabaa ma garan. waayahay hadda waxayna ila tahay madaxweynuhu wuxuu ahaa lahayba raalliga uga yaa waa ra'iisul wasaarihiisii wuxuuna yidhi 4 sano ila dhamaystana afkiisa laga hayaa ma garan. waayahay hadda 4 sano ayaga ayaa laga rabaa inay xabad ama ku dhamaystaan ama inay nabad ku dhamaystaan dadweynaha la weydiinaa ma garan. waayahay midda kalena waxa weeye xoog haddii wax lagu qabsanayo maxamed siyaada wax ku qabsan lahay ma ogtihi. waayahay marka aniga waxa weeye Soomaaliga aan ahay oo meel walba ku joogo waxa aan aniga magacaygu waa cadiya maahane ma ihi aniga nin wax loo yeeriyo sababtoo ay tahay aniga dowladda maxamed siyaad barra waxaan idhi dadka diyaar garooba haddaa dowladda ridaydaa diyaar garoobana waa ay gara waayeen ma garan. waayahay dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa mudaharaad ha uga hortagaan. mudaharaadka markay uga hortagaanna amisom xabad kuma ridi karto dad mudaharaadayo ma garan. waayahay xasan cali khayrana hadda wuxuu joogaa dowladda Sweden oo la joogaa wuxuu la joogaa dowladda Norway. waayahay ka haysto. waayahay intii baduna ku guda jira weli ma garan. waayahay marka ummadda Soomaaliyeed ha ogaato xasan cali khayre inuusan dal iyo dad iyo diin midna u shaqaynayn. ummadda Soomaaliyeed ha ogaato oo uu shaqaynayo sekadii hore uga tirsanaa jiro gas and oil wixii qashankii uu ka shaqaynaa ma garan. waayahay waa maasanta qadka igu badan haye waa maasanta. halow ها والسلام عليكم سيتا waa fiicana dooda hore u gal. walaalo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ah waxaan arkay moogtahay ninka la yiraahdo Khayre oo iska dhigay maxaa la ninka Tom Jim amro baawarta wato maxay ku dhacay taas fahmi waaye. hadda mabduuca ma ku saabsan Kim Jong waxay ku saabsan tahay heshiiska la galay mataqaanaa la galay mataqaanaa ninkaas show off ku waa iska dabeecadiisa laakiin kuma saabsan mabduuca qad kale u gudbiya. halow السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي الضوضة هو قالوا في عن هاي. ضوضة من آدم ولا صعداء ماشي مرة سوارين حساسية الأرين كانوا وارين شعبية له وحنا وحنا آد وحنا شعب كما ورهيان ذلك الجولي أنت كنا كما ورهيان وحنا ليس يعني تاجر في دولة دولية دولة جن واحد عن بيت سميسي وارين كوارين عن لكن وحوى مصير الشعب كله ورجينيا ساس نوحلا طول قادم كلام مدرسة. ويا يوجد غد يوجد. هلو. السلام عليكم السلام ضد كوسعة. ثاني وقت سلامي مركورة مركل
labaad haddaan ra'yigayga dhigto si xogaa ra'yaa waa ka duwanahay adiga iyo inta ku fikirka ah laakiin dee macnaha qof walba fikirkiisa fikirkaaga xor u tahay ku soco dooda ku soco ha marka anigu saan qabaniyo oo ii sheeg wax masqarni ka badan ayuu dadku daalanaa shaqo la'aan abaar dadku waa inay saaxiibo samaystaan dadku waa inay xiriiro samaystaan dekadahan maalayacnigoo dadku baahida uga dhimanayaan in laga shaqaysiiyo dowlad qabsan kartaa ma jirto markaan waxaan dhihi xogaa dadka siyaasiyiinta talada haya waqtigooda ha dhamaystaan talada ha loo daayo haddii islaamkii yaanyada gelaysay iyo kii gaari gacan waday iyo qof kasta haddii uu siyaasad ka hadlo baasha waxay noqonaysaa fooday noqonaysaa allah waaya qadka ma ku jiri kartaa qof kula dooda kuu soo gelinaya qadka ma ku jiri kartaa haa ku jira okay qof kula dooda kuu keenaya saa u jirad dadka tira badana waayahay hallo السلام عليكم. وعليكم السلام. دار السلام محمد ويا السلام. محمد إبراهيم يا. هاي محمد إبراهيم هروق قال ضد هروق قال هاي. يو أريد أن أتكلم في واقع ويا حالة المدة الصومالية حالة أنا كوبا هي ورد ضد نفسي هي أمورنا يا الصومالية حالة ذك بقى شيء ومجبدا لقشين هي تبينا دبنكي هاي الصومالية أو فلقى شيء واحد مدة إلى ما أنت الله لقى شيء واحد مدة. وايهاي. أنت المدة لما لقى هي منها وحشة يا مانتي يصاب اللوضي لكن واحد مدة ما نبي سيد بيسومر في الصومالية maanta in dhulkii Soomaaliya iyo badii Soomaaliya iyo maxaan ku la yiraahdo Ethiopia heshiis lala galahayaa aqli qof kastoo aqli leh wuu garanhayaa waayahay nagi Ethiopia cadaawad weyn oo taariikhi ah oo la qarin karin oo la dadi karin ayaa ina dhex martay si dhib yarna arrinta looma dadi karo dal ogaadeen iyo la yiraahdo gumaysataa haysataa oo Soomaaliyeed waayahay intay ka soo booday maanta in ay dhaho Soomaaliyana waan la wareegayaa waxa la wixii Soomaali la yiraahdana Ethiopia hooyay hoos tagaysaa oo qabsanaysa arrin la yeeli kara maaha waayahay arrintaana oo tan sheegayay in ay diido 2006 cadeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia waa qorshaha Ethiopia wadatay hal baasaboor hal dal ah hal xad ah inay Soomaaliya Ethiopia yeelanayaan waa qorshihii Mala Zanaawi oo muddo dheer maleegayay waayahay Soomaaliya marka waxa uu taalo inuu kula talin lahaa dawladani maanta qorshaha ay Soomaaliya rabto waa arrin iska khiyaari ah weeyaan waxbay dadahayaan ummadda Soomaaliyeedna wax rabo ma sheegayaan talayto waa la socoteen Soomaaliya dadkii Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhawr shan yihiin in muwaadiniinta Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ay ku wareegsay sida hadda Cabdikariim Sheekh Muuse oo kale ay u dhiibtay Ethiopia waayahay arrintaasi doodii iyo dhibkii ay gashay weyn ogeyn welina sidii bay u taagan tahay waayahay maantana dalkii iyo badii iyo berigii iyo ummadii baa laga hadlahayaa ma Ethiopian baynu noqonaynaa oo inuu ku wareegaynaa mise Soomaalinimadeeni iyo jinsigeeni iyo Soomaalinimadeeni baynu ahaanaynaa waayahay hal qodobna waan ku darayaa oo arrinta ninkan ra'iisul wasaaraha Ethiopia hadda cusub ee Soomaalida aad moodo inay siyaabo kala duwan uga faalanayaan waa qorshe muddo dheer la maleegayo lafteeda oo loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed ninka kaliya ay u arki karaan inuu Oromana yahay diin ahaanna de kulli lagu tuhmayo walow aan cadeynayna jirin muslimadiisa siyaabo badan marka dadka soo dabi kara inuu yahay ninkana taariikhdiisa Soomaali isaga oo yar raggu Mala Zanaawi soo barbaariyay weeye raggu dalka ku aaminay weeye raggi isaga ma garanaysa aqoon iyo waxbarasho iyo dhan walba ma garanaysa uu Ethiopianimada si fiican loo laqsiyay weeye magaca Oronimada uu magac ka yahay mooyaane ninku waa nin ma garanaysa fikirka Ethiopianimadu ay ku fogtahay weeye waxaan cadeyn ku ah khudbadiisii ugu horeeyay wuxuu yiri ma iloobayno buuraha kaara marna dhiigii ku daatay Ethiopia marna ma iloobayno khudbadiisii ugu horeysay waayo dadku kula sidaas waaya Soomaaliya kulaha iyo Soomaalida dadka Soomaaliyeed miyaynan ahayn dad iyagu wax fahmi kara miyaynan ahayn dad Soomaalinimada iyo dhulkooda iyo jinsigooda iyo cirdigooda difaaci kara miyaynan ahayn maxaa keenaya in dalkii Soomaaliya maanta la shaki la geliyo la yiraahdo Ethiopia loo dhibayaa iyo
Ethiopia lagu wareejinaya iyo Ethiopia sababtii Soomaaliya maxaa keenay ummadda Soomaaliyeed inay durba sidaa dhaqaan wallahi arrin yaab la weeye mid kale markuu Masar tagayna madaxweynaha Masar waa dhaariyay oo wuxuu ku dhaariyay makugu wallahi ya makugu billahi makugu tallahi inaad daacad ka tahay wabiga Niil inaad joojinaysid fikirkii hore ee mataqaana xaaladu ay qabtay ee mataqaana ahayd arrintan xooga ah makugu wallahi inay wax daacad ka yihiin toddobaadkan Eritrea tagaya dhulkii la isku heestay waa u tanaasuriya Soomaaliya inuu qaato raba waliba okay daayira marka waxaan ku soo ururinayaa kulli anagu waxaan ka soo jeedaa wadanka Ogaadeniya waana ka dagaalanaa dabadgeednimo doona oo ka soo horjeedaan u nahay Ethiopia hadda wax muquulinayso oo leh sababta muquulin lahayd ilaa muquulin karta malaha khiyaali bay ku socotaa laakiin waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed haddii Soomaali oo dhan mowqif ay qaato Ethiopia nima noqonayna Soomaali laba arrimood maskaxdooda waa inay geliyaan waayahay kow horta Allahu naxariiste Sudan Ogaadeenaha bari wuxuu ku maamulay show dadkaas oo kale oo wuxuu arkay in Ethiopia amaanaya marka wuxuu yiri Soomaali hadday wada noqdaan dhamaantood waxaan la yiraahdo hadday Ethiopia qabsato horta daanyaraan wada noqonayna ka ugu daaxuusanna wuxuu noqonayaa anaga noqonayna waaya Soomaali hadday maanta ku targesan tahay dalka Soomaaliya in Ethiopia wada soo Soomaali Ethiopian ay wada noqdaan dhamaantood waa inay ogaadaan kollaba inayna dadkaasi qaadanaynin Ethiopianimada dagaalkuna weligu soconaya Ethiopiana marna uu ka dabacay dagaalkaas hadday Soomaali oo dhan ay soo dhaweeyeen Ethiopia waayahay waxaan marka kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed waa Ethiopia ujeedad dheer oo taariikh leh oo inu ognahay oo inu ku baabaanay oo iyaguna ay ku baabeen oo taariikhda gashay oo inu ognahay baa jira maxaa Ethiopia meelay loobinahay Soomaaliya u loobaytaa waayahay iyalka Ethiopianka waxa loogu dhigaa taariikhdooda waxa loogu dhigaa dhulka Soomaaliya dhul Ethiopia inuu yahay waayahay waxa loo sheegaa xilligay dooniba ha qaadatee mar Soomaaliya Ethiopia gacanta ku dhigayso waayahay maxaa adiga diidaya inaad carruurtaada u dhigto dhulkan Oromada la yiraahdo dhul Oromi iyo Soomaali inay dad hal mid ah yihiin oo ma garanaysa hal jinsi ah oo hal mid ah labada qole am xaalada iyo nimanka la fikirayna ma garanaysa meel ay u saar leeyihiin waayahay Soomaali marka waa inay khiyaali ka baxdaan waxa kale oo rabaqada inaan ku darso shalayta waxa laga dhawaaqay berbera oo Soomaaliya ay ka kacisay waaya way berbera ma garanaysa loo qeyliyay hadii Afrika la siinayo haddii afar la siinayo shalay malaha isaaqna cayb bay ahayd dadka qaar qabiilnimo isaaqa u dhacbaayo colaad mataqaana isaaq ku xumayn bay ahayd marka dekada berber laga qeylay maanta farmaajo afar dekedood bixiyay juuq lama laha oo dadku reerka ay juuq ma laha badankood waxa weeyaan arrinta waxaan ku soo ururinayaa jaaniska dadka kala runtii siinaya waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaalinimo ay ku jirto waxa weeyaan waa in waxaad ogaataa daahiro qorshayo baa yaa jiro oo Ethiopia ay mareegayso oo runtii inay Soomaalidu ogaataa ay tahay waayahay qof kasta horta wadaniya oo Soomaaliya oo inna haba yaraatee Soomaalinimo ay ku jirto Ethiopia horta target buu yahay waayahay rag badan oo Soomaaliya ku laysay waayahay weliba qorshihii waa wadataa waxay rabtaa dad cawaana oo la soo dhisay oo waxba garanaynin oo Ethiopianimada leqsan inay Soomaaliya la wareegaan waana qorshahan ay maanta wado waxba maxaan ku dhahay xataa al khayriya farmaajo waxba yeelin shakada khiyaaliga ma garanaysa ummadda yeelin ku maaweelinin waayahay dareenka Ethiopianimada way qabaan wayna aamineen wayna wataan laakiin shacabka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay inay jinsiyadooda iyo dadnimadooda iyo Soomaalinimadooda iyo diintooda inay difaacaan baa Soomaaliya laga rabaa maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ka kacaan arrintan waa qodobka kaliya ee lagu badbaadi kara way maataas inaan oday xoolo la isqaataa iyo siyaasi la isqaataa aan la sugin oo dhalintu ay maanta kacdo oo inta qabiil meel iska dhigna dalkeena difaacano wixii dhexdeena iska ilowno baarlamaan waa inaan la sugin daayiro baarlamaanka Soomaaliyeed waa inaan la sugin waa inaan madax Soomaaliyeed la sugin shacabka Soomaaliyeed maanta waa inuu isku tashado waa inuu go'aan rasmi ah uu qaato oo kaga hortagayo sheekada khiyaaliga iyo qoraalkan iyo document campaign la isla saxiixayo haddii kale waxay noqonaysaa Soomaaliya Ethiopia ay qabsato Ethiopia waa 90 million bay ka badan tahay minority ay Soomaaliya noqonaysaa walaha Soomaaliyeedna cawaanta sakaraadka ee quraha ma garanaysa ku silicsan ee wada gaajaysan ayaa Soomaaliya soo galaya sida maanta Hargeysa ka dhacaysana Soomaaliya way ka dhici doontaa
وحويان مقالة بربر اللي يرادو نيكا مانتا وحويان حمالك وانا محارا وي وانا إثيوبيا وي وما قال صوماليا إنه حمال كنو ودرب إنها نصنا ومانتا ويولي إذا بربران اللي وريد فالكور ربي صومالي اللي وريد وايه هلس وين maxamed ibraahim waa ka dhex gala waxay la mid tahay garoon kubadda lagu ciyaaraya hadda Moscow World Cup ka socdo hadii la yiraahdo ciyaartooyda dadka daawanaya ha lagu fasaxo ciyaartooydu ma muuqanayaan ma la arkayaan maya ma muuqanayaan in la yiraahdo halas dhex galo Ethiopia iyo Soomaaliya dhex gala shacabku waxay la mid tahay taasay la mid tahay waa ma taqaanaa ciyaarahaas ka socdo kala Moscow in ciyaartooydu loogu soo galo garoonkay la mid tahay marka qof Soomaaliya muuqama doono codna ma yeelan doono waxaa jira oo muddo badan hadda ay wadeen oo wada socotaan ee magaalada Baydhabo oo kale ciidanka Itoobiya degan wuxuu aad iyo aad isugu taxallujiyay inuu dhexgal uu shacabka ku dhex sameeyo Baydhabo oo la socotaan waxa ka socda xaflada iyagoo dhigan haya iyagoo heesahaya iyagoo dabaaldegaya macnaha dhaqankii iyo culture-kii Itoobiya ma garanaysaa si dhib yar Soomaaliya loo soo gelinaya Soomaaliya waxa ka socda movie Itoobiya ay leedahay baa yaa meelaha inta badan lagu daawado TV-yada ma garanaysaa aad loo soo geliyaa amxarada dhaqankeedii iyo ma garanaysaa waxyaabaha dhantadan hadda lagu leeyahay aad Soomaaliya loo soo dhexgelinayo waa dhaqankii Itoobiya weeye maaha dhaqan dhawaan leenahay canjeeradii iyo maxaan ku dhahay saxgalkii iyo soo dhawaanshii iyo wixii dhan baa la wadaa marka ummadda Soomaaliyeed waa inay arrinta ka diidiyaan waa inay arrintan ka kacaan intaasaan daayro yaan ku soo ururinayaa doo maasantay waa maasantahay halow qofka xiga iswiilka soo hadlaya halow assalaamu calaykum daayir وعليكم السلام ورحمة إيسو كوب هذا هذا القوا كوبيا دائرو ماشان ودك لو فرق مجرت ما أنت عكا حين إن ودك اللي بيساعده وايهاي وحار ملء حكومتنا ودن كان دول واحد دولة من دوك مجرته وايهاي حكومتنا وحكوا أكيد وقت في شرع مرك اللور لا فيريو اللي مالك قلب ده حيبت أيه نعده وايهاي baarlamaanka toodana ma jiro cid la isku haleeyo kala ma jirto muhiimada waa in oo in la garab la siiyo oo halkaas laga dagaalamo waayahay laga dhawaaqo garab kale oo in Muqdisho looga dhawaaqo waayahay marka wax kale ta hadal ma jiro hadalka badan wuxuu keenayaa isayelada tirada badan in maxay ahayd ishay wadanka uu gacanta ka sii baxo oo lagu sii xoogeystaan maxay ahayd qolooyinkan oo qowleysatada farmaajo horkacayo waayahay waa maasantahay ayo adam هلاو قفك حاجة هلاو ضد هلاو قال وكاق علي اسكندمي اسكندمي عدك يوصل لعباني عدك يوصل لعباني اسكندمي فيديو كوشدان وايا قفك صعد فيديو شنو هلاو قفك حاجه هلاو سويدن هلاو ساوث افريكا هلاو وين مقلا سما واكو مقلا هرو قال وقتي سوكوب هدي انا دولة فرماجو وتاغيرتنا هاي ما محمدي جري هشيسك لا قاتين وهشيس شرعي الله مري والله وافقد شرعيه وما سنتاي هلاو قفك حاجه نوروي هلاو ها ضد هرو قال والله ما داير ودودا قريبا ugu jira horena waa ula socday waxa weeyaan qoliyo oroma kamida waxa la dhaca ya markii la islaayo usha lagu dhufto ayaa waxay dhahan baa kitin dhabe ana ar igu celi yani waa ku celin baa la barnaamijka uu kitin dhabe ilaa nafta ka baxayso kitin dhabe ar igu celi daan bu ku hay waaya war boqol darbaaxo iyo kun darbaaxo iyo kun bahdil baa umada Soomaali gaaray umada Soomaali wax in aadmi lagu bahdilo nooci ugu xumaa nooc aan loo gaarin umada Soomaaliyeed ma jirto waxa weeyaan ma aha in la meelahan la tuujiyo ma aha waa in nabarka la taabto war umada Soomaaliyeed dib u xoreyn bay u baahan tahay umada Soomaali meel ay joogto waa la wada haystaa inta oo dhan waa laga qeyliyay midyada meel walba waa laga qeyliyay daahirow midya wax ku xoreyn mayno inaan meelaha ka soo hadalno waxa loo baahan yahay adigu inaad horgal u noqoto shacbiga Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed inay kacaan oo ma taqaanaayay jabcada la isqabsado oo cadowgan la iska rida ayaa loo baahan yahay looma baahno
kana onlefa iyo kana Soomaaliya iyo kana maxay iyo kan dadka Soomaaliya dhamaan waa la wada haystaa cadawgii inta yar inaga haystay intuu soo gurgurta ayuu Soomaaliya oo dhan qabsaday ishi yarada ay noo banaanin saas ayuu ku qabsaday marka darbaaxada kitin la dhabe cari ugu celi cari waxa weeye sheekadeenu fadhi ku dir waxaan iska noqonay dhamaan miidiyaagaasana aad ka wadaynaa uma baahno rag ayaa soo qoystay qorigoodii iyo tuutahoodii xidhan warnaga tuutaha maxay noo diiday raggana dadkuna ilaa ay dhiig huraan oo nafkooda huraan wax ma noqdaan meel lama gaadhaan daahiro waa saxiix taas marka waxaan leeyahay nimaa dhimasho oo banaanin wax ma noqdo war waxa weeye adoo haddaad dhimatay eeru janna tahay sharaf baad ku dhimanaysaa inankaaga iyo ilmihiisa kale ayaa loo dagaalamaya oo loo dhintaa waad aragtay wadamada reer galbeedka joogna hadduu gurigeena gubto rag baa naftooda huraya oo ilmaha yar badbaadinaya oo kulaano adduunka waan soo arkay waxaygana waa soo cunay adduunka waxa yaalla waa soo arkay buu leeyahay laakiin ilmahan yari adduunka waxa yaalla ma unan arag annaga maxaa noo diiday oo muslimiin oo maanta mataqaana inaad jannada ilaahay ay kaaga horeyso maxaa kuu diiday inaad nafta hurto warbeen yaa la sheegin meelaha yaa la gurguranin raggankaasi nin warkiisa kuu sheego kurwanadana waad aragtaa shaati weynahaasaan ahayd sakariya oo ugu wadanaysana ilaahan kuu dhaariyay sakariya haddi waagaa kugu dambaysa daahiro taa sakariya maalintii baabuurka loo iibiyay ugu dambaysa intii dabeydkii dadkii ku xidhnaaye inta badan wax ka qori jiray baan ahay dadkii sakariya ku xidhnaa dadkii nin walba raggaa mataqaana meesha hadduu heer baarlamaan hadduu heer wasiiro wuxuu dolan way halka nin aynu wadaninimo ku tuumayna aynu mataqaanaa isheenu ay fiirinaysay hoos baynu ka gaadhnay war ma quustayaal miyaan noqonay inaan quusanno weeyaan ma aha inaynu maanta isweydiino badii baa la qaatay kanaa la qaatay caashaa la qaatay laantii baa laga qaatay war ma aha war waxaa inoo dan ah inaan is-abaabulno oo ka jigjiga degan iyo ka jabuuti degan iyo ka meel kasta degan waad aragtaa maanta waxa mataqaanaa meesha ka socda waad aragtaa raggaa fiilla Soomaaliya fadhiya fiilla Ethiopia weeye fiilla ajnabi weeye fiilla xaqanaas weeye waxaynu inagu leenahay ma aha xukunkan meesha inoo taagan wax dad Soomaaliyeed ka shaqeeya ma aha waa rag nin walba uu ku fikirayo aniga bangiyo maxaa iigu jira imisa iigu jirta adiga imisa kuugu jirta mustaqbalka ibn aadmiga Sheekh Cabdiraxmaan Bashir wuxuu dadku aqliga maskaxda ka xoroobaan war dad caloosha ka xoroobay baa inoo hor taagan ma aha inaan daawano inaan is xoreyno weeyaan waa la ina haystaa kun jeer baanu cadaadinay hadaan oon leenahay kun jeer baanu sheegnay war ummadda Soomaaliyeed dhagax baan taabasho iyo tuujin dhagax waa isugu mid baa leeyahay dadka Soomaaliyeed dhagax baan noqdeen dhagaxnimo loo baaray aan halgan oo cadawga iska dhicin aan leeyahay anigu waa maasanta way aad baan u salaamayaa dadka mataqaanaa meesha ku jira taas ka baxaya way hello Germany salaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahma salaam waa ka qaaday dooda hore u gal dooda hore baan u galayaa daahiro waxa weeye maantay ma taagna macnaha mataqaanaa heshiis baa la galay baalkaa la galay war farmaajo filo Soomaaliya shacabka Soomaaliya laga saareen baa taageeray ma garanayo waayahay warniyo haba taageeray nimanka adduunka u nacba al-shabaab baa maanta al-shabaab baa jeclaaday hal laga saaro oo al-shabaab haba taageero oo wadankii waa liibsada wadanka laga qabto war wadanka joogin war weeysa dad u dhala wadanka war maxay tahay Ethiopia wadanka la keenayo war milas baa hadda koor wuxuu ku dhawaaqay inta doonta ka soo wareegto Soomaaliya waa la wareegayna maalna la wareegnaba war taageer xuseen ayuu ra'iisul wasaare ku xigeen baa hadda koor wuxuu yiri waa qaadayna xuduudada wadanka waa isku darsanayna war wixii la sheegi jiray maanta cadiin war yaan la iska daayin ayaamaha kaliya ee shucuurta iyo wadan waxa la muujinayo ee hal la muujiyo kalsooni dhab ah iyo dadnimo dhab ah war maxaa damiirkii dadnimadii naga qaaday waa maasantahay nin damiir ka muuqdo dhimata dadnimo Soomaaliyeed ka muuqata tahay waa maasantahay hello South Africa hello iska dami muuqaalka assalaamu alaykum alaykum salaam hore ugu soco waad gartay farmaajo khara washa wax loo dulqaadan karo maaha dadka magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya dhan waxa ku waajibay inay kacdo sameeyaan ee la dagaalmaan nimanka tuugada wadankiisa ma garatay waa maasantahay aad kala gudbiya hello China hello salaam alaykum salaam hore ugu iska dami codkii iska dami hello walaal waxaan rabaa inaan dooda hore u galo magacaygu waa Cumar waayahay walaal runaantii waxaan dhalinyarta kamid ah dhalinyarta Soomaaliyeed runtii aad iyo aad ayaan ugu xumahay waxay dawladda Soomaaliya sameysay iyadoo aanan haysanin ciidamo badeed ayay Ethiopia u fasaxday inay baalka xal ay siiso dekada sidee ku dhici kartaa iyadoo aanan haysanin ciidan awood leh ciidan aanan la qalab yoo ku maqlaya ku soco
sidee bay walaal ugu ogolaan karaysaa inay baalka maxaa la Ethiopia ciidankeed u ogolaato inay badda siiso midda kale walaal Ethiopia waxa weeyaan waxa ku jira qorsheeda in qunsilid walba laga furo degmo walba ay ka furto qunsilid marka taasi sidee bay u noqon karaysaa macquul intee lagu arkay wadan gobol walba iyo degmo walba ha ka furayna qunsilid taasi waxa weeyaan dawladda Soomaaliya run ahaantii aad iyo aad bay ugu fashilantay inay ka ogolaato Ethiopia waxaan kula talinayaa baarlamaanka inay arintani ka hadlaan oo ka dhigiyaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa inay noqdaan dad isku duuban oo Ethiopia meel uga soo wada jeesto run ahaantii maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay gacan ay u baahan tahay waxay u baahan tahay inay garab istaagaan waxay u baahan tahay in adduunyada baalka maxaa la ay la jaan qaado marka run ahaantii waxa weeyaan dawladda Soomaaliya way ku fashilantay runtii arintan ha ka soo noqoto midda kale waxa weeyaan nin baalka maxaa la Ethiopia ay saddex isbuuc ka badan u xidhay baalka maxaa la magaaladii ayuu markaas windi baalka maxaa la hal saac wax ka yar ayuu joogay taasna waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed ma qabato run ahaantii dawladda Soomaaliya kalsoonidii shacabku way lumisay waxaan farmaajiye khayr kula talinayaa inay arintan si degdeg ah uga noqdaan ayna dadka qanciyaan ayaan baalka maxaa la kusoo gudbay waa mahadsantahay halow qofka xiga muqdisho halow عليكم السلام ضد هراء وقل ضد هراء وقل قد كأيقون بدني هاي مش أنا مهنا بس كسرنا هاي كان الحين في الماضي وحتى على غيره هذا يوم حركة كمان هاي لا كان مسمين وقلب بلنا عاديين طبعا إيش عقل الصومالي مغرب مش كنا كنا من الضحية وين كمان دونا مواضيع نصوص عمر إن شاء الله وحارجينا لذلك سنة نتقدر أن نقصد من التوبيا بالصومالي هيك واحد marka aad iyo aad aan u rajaynayaa waayo waa mahadsantahay hello Sweden hello Sweden salaam عليكم السلام ضد هراء وقل walaal magacaygu waa Axmed Cali Sow واي أحمد على سهراء وقل ضد وقالوا walaalka hadii waxa ku dhihi wadaar Cali Sow nin maarasay barnaamijkaadu dadinaya waa tahay nin meelo badan wax ka arkay waa tahay waxa wanaagsanaa lahayd in wadankii aad tagtido oo bilowdid maaragtay adiga ee kacdoon ka bilowdo wadanka ma garatay wixii ka dambeeyay July waa tagay dawladda midda kale shafkaaga qaran hello haye ku socodooda hello السلام عليكم عليكم السلام ضد ku soco hadda daahiro wadanka waxa laga sameeyay baarlamaan leenahay baarlamaanka jiifa maayta hadda baarlamaanka jiifa idinka rabaa dadku soo doortaan rabaa inay la hadlaan shacabkii jiifa baarlamaanku ma jiifo hadduu baarlamaanku arka shacab qaylinayo oo banaan baxayo oo soo baxayo oo kacdo sameeynayo oo naftooda huray baarlamaanku ku qasban yahay inuu wixii shacabku rabaan fuliyo laakiin haddii shacabku aamusan yahay baarlamaanka lacagtiisa u daray 3 kun ka qaataa madaxtooyada xildhibaan kasta هالو سويسرلاند هالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة داير حال سو ما تنسى برامجك أداتيني سو حتى لو أدقي سنة لكن سمحت وآديات بغوح من إثيوبيا صوماليا كدوش واي هاي آديات بغوح من شريط اللف وحن داوني عرفت فيها لين عليهن مرة بنتاس ويتوبيان قلعتي إليه وانين أسائل دعمية عرفت قالتشada dagaalka dhacay rafaasan baa u baahan lacagtii imaaraad ku siinayaan ay dhahayeen waan hayaad ma sidii oo dhan waan hayaad ma koobi baan ka soo qaaday carabta isku qorqorayeen waa mahadsantahay nin yaro aad u aqal badan ta hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة داير علي سؤال بان كل سلامي وقاس وسلامتها ضد هراء وقل ضد هراء مركان وقل نكا فرماجو iyo xasan cali khayre gudubbi ka galeen ummadda Soomaaliyeed bad iyo bariba intaan u gudbin waxa ka daran dhulkoodii hore ka maqan ayaan ilaa hadda aan ka hadal dhulka horna ka maqan yahay bad afar badoodna way ku dareen marka waxa weeye rag in nolosha lagu gubo nolosha idigu waxaad ka hadlaysaan xidhitaan iyo waxaad ka hadlaysaan hal afgabiyey nolosha in lagu gubo waa khiyaamo qarniso sida ma ogid waayahay waa high treason ha waa khiyaamo qaran marka waxaan ku leeyahay inaga wadan kale inaga dhalinyara ina isqabsano gamcaha inayna isku duubnaano weeyaan odayaasha waqtigooda way qaateen isagoo haddii waqtigii adduunka adduun ahaa wax bartay oo tacliim bartay annaga maanta wadanku noo baahan yahay
inaynu markaa inaga isku duubnaano weeyaan annaga min raas kamboni ilaa raas casiir ilaa kilarka shanada annaga ku berber taagan hore u socono ku leenahay khayrna waxba kaama qaadi karo walaa farmaajona waxba kaama qaadi karo haddii hoos loo daadigana farmaajo degadu dhashay geda bad male geda hadako idinkana reer muqdisho diina dhulkiina ilaashada kuwan berbernaha ilaashadaan nin kastaba xeebtiisa ha ilaashado haddii saa noqotaa laftigeeda waayo hada alla kharna dayni loo dhashay dayni bad male marka ayaan la isku dheelin baasho weeyaan waa mahadsan tahay halow suudaan halow suudaan halow germany halow وعليكم السلام ورحمة تعال شوف هيا هروق الضوضة هنا هذا رحت ضد دون داوني ما فاتي هاي ضوضة هروق هالو هالو هولن هاي ضوضة هروق joogno aqal aan lahayn waa arki jirnay madax ka cabsata baarlamaanka madaxda maanta joogto wax walba iska saxiixay meel walba ay taagan yihiin baarlamaanka waa iska hurdaya waa maxay daaro waa waxa la yaabay igu jiro dadka halow cibaar halow cibaar halow halow haye dooda hore u gal hadda dooda igu jiraa keliya waa ku jiray muxuu ahaaye waxaa arki jirnay madax ka cabsato in baarlamaanka markay waraaqaha saxiixaya inay iska fiiriyaan ay wax walba eesa ku fuudaan hadda maanta waxaa socota madaxda inay waxba iska saxiixdo nin walba iska soo galo wadankii waraaqihii la iska saxiixanayo indhihii oo dadkii aysan u jeedin baarlamaanka waxaa laga rabay inay tilaabo ka qaada waxaa arki jirnay madaxweyne xasan sheekh maxamuuda ka horreeyay ra-iisul wasaarayaashka way cabsan jireen mar walba waxay ka cabsan jireen in taakada ay qaadayaan ee shacabka iyo golaha shacabka waxaysan oga inaysan qaadin laakiin maanta waxaa bilaabatay in baarlamaanka la iska xureysto oo maqaankooda iskaga fadhiyaan ma garan baarlamaanku waa gadan yihiin waa gadan yihiin kulligood hadda baarlamaan fiicanna meesha ma joogo marka waxaa laga rabaa shacabka in barkacad dadkan guryahooda ugu galaan oo meesha ka saaraan waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay halow halow netherland هلا السلام عليكم عليكم السلام dooda codkaa kala qaad dooda hore u gal dad waxaan kaga qaybgalaya hal erey baan rabay inaan ka iraahdo waxaa weeye maanta ka hor soomaaliya anigu maanan baqin khatar culus baa kusoo socota wadankii marka waxaa loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado ninkaa farmaajaha wadankii barigii iyo dhulkiiba igsanayay in laga hortago intaasaan soomaalida ugu baaqaya asalaamu calaykum waalaikum salaam halow muqdisho halow muqdisho وعليكم السلام ضد هروقل ما شاء الله ضد هدي ورا أوغل برنامج كرت آدي هذا وحماي مدام دولة سوماليا SMS إن إثيوبيا حواي نلذ ذلك وايه markaniyo xawaay mar adiga wax badan laga joogaaniyo xawaay mar iskuul mid Ethiopian isla dhiganay wuxuu ii keen sheeka ah Soomaali kula xeetan Soomaali eelada kula ana kale waaye markaniyo xawaay barnaamijkaniyo barnaamij aad iyo aad uga xumaa waaye maadaama aan ahay dhalinyarada xamar dawladda xawaay aad iyo aad u khaldantahay maadaama go'aankeeda iska qaadatay waa maasan tahay halow muqdisho qofka labaad muqdisho ka soo hadlaya halow maqlaa dooda hore u gal هاي الديار هيا صعوبة كم قريان شعبكوي ويا والله كيف ورد الله يخليش ما يخلط كوده ويا وكم الله هيا هذا ولا وكم قريان لا لوح يدي هذا وانا كوش هذا صاحب الخرطة مركز في الهشيس هذا اللي جاري وهرت هشيس رمتي كي قدام بيبان بيكراني وضل كان قيبي ومنصال مورجي ويا توبيا وأدرس أعتقد إنه يشنبر لهين maxaan ku radaa hadda Soomaaliya badeedii xalli ka soo galay ciidamada marine leeyihiin bay maarta toddobaadii ka hor sheegeen diyaarsadeenna waasoo macnaheedu waxay tahay in afarta degmad ee Soomaaliya hadda ay ka rooneen la wareegaan marka anu waxaan dhihi lahaa madaxda Soomaaliyeed maana ka fakerin heshiis waa la dhagaa laakiin kamaana fakerin heshiiska intee buu jiri karaa hay'ado faa'iido intee leeg waa Soomaaliya u jiri karta baarlamaanka laftirkiisana waxa weeyaan hadda waxaa la geeyay Soomaaliya wiil yar waxaa la geeyay oo ii sheeg raggan meesha jooga uu ku fakaraa marka waxaa noqonaysaa in isagana yiraahdo hal arsi wax ka hor imaan kara ma jiraan waaye waan la socdaa
xubno badan oo baarlamaan ka tirsan baa lacag ka qaato oo mushaarkooda mid ahayn ka sii qaata 3 kun oo dheeriya madaxtooyada laga siyaa bir walba xildhibaaninta badan kubadda waa jiraan wadaniyiin oo qaadana 100 gaari iyo dhowr laakiin inta kale waa qaataan marka waxa waaye dad marka lacagtaas dheeriga qaato oo jeebkooda iyo dhuuntooda ka fakaray qaran Soomaaliya marka maxay u hayaan shalay ibaaraad baan diidaynay oo aan la dagaalanay oo maarta waxa uu diidan laakiin maanta Itoobiya ku doorsanaa waa mahadsan tahay waaye hello hello ha dooda hor u gal niyo heshiiskaas aniga waxaan u arkaa mid Soomaali dan ugu jirto ma garatay waayahay waayo anaga waxaan nahay dal burburay oo hadda soo kabsasho u baahan waayahay marka jad dhaqaala kaliya u baahanay Soomaalida dhaqaalaha hadday hesho dalka inuu xasilayo ila tahay aniga ma garatay waa mahadsan tahay hello qofka xiga ee ka soo hadlaya horan hello 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 burjumka hello burjumka assalaamu calaykum وعليكم السلام daahir waxaan ku leeyahay horta niyahow barnaamijyadan aad bilowday waxay leeyihiin barnaamijyo soo daahay oo waqti hore loo baahnaa muddo fara badan baad arrimaha Soomaaliya ka soo hadli jirtay adiga oo khibradaada u adeegsanayo marka niyahow fikirkan iyo hawshan cusub ee maanta macnaha waxay u baahan tahay dadaalka halka iyo qaabka aad u wajahday inaad ka ballaariso aniga fikir ayaan waayahay dooda hor u gal waxaan dooda waxay tahay walaalo waxaan ka codsanayaa daahiro haddii aad samayn karto in aad dooda furfurto oo aad soo macsuunto dad maaragtay saaxiibo aqli ah oo aqoon-yahaniinta Soomaaliya dad badan oo kula fikir ah oo sidaada ah oo fikirkaaga qabo oo u xoggaarsan arrimaha East Africa iyo arrimaha siyaasadda aad ugu dhundaloolo waa jiraan sida barnaamijkan gaar hayo adigu mar aad soo qaadatay oo misaal noogu soo qaadatay sida ninkaas odayga ah uu sameeyo inaad soo cazumto dad oo khubaro ah oo arrimahan ka hadlo ayaa aad iyo aad u muhiim ah oo u baahan nahay maadaama aan dad badan ay kugu xidhan yihiin arrinka bariis noo fudaydi oo saan wax badan uga faa'iidno waayo keligaa wixii hadday kugu soo koomaan macnaha waa mas-uuliyad weyn oo adigana ku saadhaanayso noqon doontaa shacabka Soomaaliyeedna dusha kuma qaadan kartid inta iyo aqoonyahan balada bahasha iska furdaamay oo dadka iskaga dhiib oo noo ballaaray waa mahadsantahay hello Norway waa soo gabagabeynaa barnaamijka dadka ugu dambeeya soo qabanaya hello Norway hello malaha saddexda qof ee ugu dambeeya kamid tahay barnaamijka soo gabagabay waniyo daahiro waxaan ku leeyahay saaxiibow barnaamijkan wada waa barnaamij qurux badan waxaana ku sheegayaa niyahow may maqlaysaa waa ku maqlayaa ku soco waxa waaye wuxuu u baahan yahay rag adoo kala adada saweyn loo naasaweyn ina kuwa saaraba waa niska caytamay kaasi waayo hello ku soco dooda waxaan ku xumahay maadaama anagoo dhalinyarta Soomaali aanay oo nala tashan ku soco dooda waa lagu maqlayaa hello daahir ha dooda ku soco عليكم السلام horta aniga waxyaabo badan oo ku ra'yi duwaneen laakiin arrintan oo uu farmaajo saxiixay anta ugu soo horjeesta ma fahanta haye marka niyahow arrintan horta hal xaqiijiyo ma fahanta niyahow dowladnimo anaga rabnaa horta niyo anaga waa mahadsantahay hello qofka bare ka soo hadlaya hello عليكم السلام ورحمة maqlay dooda waana maaragtay qaadanaya nimankan oo bahallada maaragtay oo qeyrlaawo iyo maaragtay xarmaajo in la iska qabto waaye oo dalka laga qabto waa dad calooshooda ku shaqaystayaal ilmahoodana dibadda joogaan waa inaan iska qabano Soomaalidana u kacno waayahay marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa wadanku hore waa inuu wareejiyo annaga dhalinyaradaanahay waa in annaga kacno qofka baada badan noo kacay inay jirnaa filaya waayahay hello qofka ka soo hadlaya hello السلام عليكم عليكم السلام dooda ku soco
والله لضبط aniga kulli waxay ila muuqataa wixii maanta meesha ka dhacay ummadda Soomaaliyeed waxa moodaa in meediyaha waxyaalo badan ay u amakuuseen laakiin markii reality laga hadlo heshiisyada caalamka iyo heshiiska la mid yahay wadankeena waa wadan mataqaanta sovereignty waa wadan xor ah cid mataqaanta ku xad gudbi kartana badiisa malaha marka ummadda Soomaaliyeed waxa jeclaan lahaa inay shaydaanka iska naaraan xuduud baan leenahay caalamkuna laga ixtiraafsan yahay in marka lagu xadgudbana ma dhici karto waxa kaloo laakiin aan mudannahay in siyaasiyiinta maanta jiraan ee wadankeena kheyraadka iyo waxyaalaha kaloo aan leenahay maalgashi inay u sameeyaan si dadka ay shaqo way waa masan tahay hello ha dooda hore ogal iska dami qofka hadlaya dooda hore ogal waa ku jirtaa qadkee qofkaas xilli hore u ahay okay waxa weeye horta waxaa laga hadlayaa Soomaaliya badda iyo Soomaaliya iyo Soomaaliya ha badda loo saxiixay mataqaanaa iyo dekadii loo saxiixay Ethiopia loo saxiixay horta ninka badda saxiixay horta intii si uu saxiixay ma saxiixin Soomaali weyn xoolahoodi ma saxiixin ma gara waayahay been hadduu asagu uu meeday oo been saxiixay oo meeday in dad wixiis uu bixin karana been buu isku sheegay jawaan ciida aana dhabarka loo saari doonaa waana yeeli jirnay waana yeelaysaa insha allah bikariim laga jawaano ciida bay labadoodu kala leeyihiin ciidda inta ay lahaayeen bay gateen inta ay leeyihiin meeshay rabaan hala aadanayo Ethiopia kula darsamaan ama Kenya kula darsamaan ama meeshay rabaan kula darsamaan laba jawaano ciida ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya waaya marka waxa weeye Soomaaliyeed hadda dhulkaaga markii loo saxiixay ilmahaada koriinadeedu waa habeen waxaa taraysaaba iska yarba waxa weeye nin walbow meeshaada ushaada ka soo qaado madaxaada ka soo qaado nimantaas ciiddaa loo xambaariyo inta ay gateen ha loo xambaariyo iyo lacagta ay kala baxeen hala isugu xambaariyo meesha kaa dhacayaana kala dhacaan waa mahadsan tahay Asilia hello daahir waa ku salaamay waayahay waa fiicana dooda ku soco waa gabagabo daahir horta shacabka Soomaaliyeed dhammaan waa salaamaya adigana waan ku salaamaya shaqo fiican haysa aad u mahadsan tahay waxaana ku sheegayaa aniga shakhsiga kula hadlaaya iyo rag kale oo badan ba hadda tigid baan oo go'an wadankeena ku laabaneynaa dhalinyaro Muqdisho ka soo jeedaan nahay ma garanaysaa waayahay marka farmaajo iyo khayre waxay dhinac mareen shaqadii loo idmaday inay shaqaale yihiin bay horta dhinac mareen waxa ay saxiixeen waxay ayaga leeyihiin maahan waa waxay Soomaali wada leedahay dadxan wadaagaane dadku wax ma siin karaan ma garatay waxaan ku sheegayaa waxa ayaan daraa nimanka ku xuriyamay samankii Ethiopia-ka maanta in loogu hambaliyay waxay u xuriyameen in loogu mahad celiyo lagu yiraahdo waxaad ku xuriyanteen oo kulligu weyseen maanta miraheeda waa kana aan goranayno xuriyanimadiini annaga raali kuma noqon laakiinse waxaan ka harin waxaad ku xuriyanteen inaan meel soo uga soo harno inta loo soo libiso oo barxad weyn inta lasku keeno sawir laga qaado dabeer xumada heerkaas leh kuwii ku xuriyamay idin xuriyamay samankii aabayaashoodii idin xuriyamay wiilashooda ay ka abaalmariyaan loogu jawaabay ma garatay Ethiopia-ka dadku way wada barteen way yaqaanaan waxyaabaha lagu hadlaayo marka waxa abaalmariyay aabayaashii farmaajo iyo khayradda sida hadalkay u dhigayaan waa macna ma garatay waxaan u xaraynaa shalayna baddaas ay ahayd oo xuriyanteen badina maanta waan ku guuleysana waa helnay adinkuna nolol fiican ku nooshiin halka xuriyamiinta Soomaaliyeed oo sababtooyinka ku xuriyamane gudcur caawa meel la fadhiyaan iyo Maro Cabdullaahi Yuusuf ciidamadii hor keenay iyo Maro maanta waxaas ay ku dhacaan oo ayagana ay daawanayaan xuriyamiinta ayaga qeyrkooda sida loogu raaxeynayo ma garatay marka saas darteed annaga Yurub waa joognay waa shaqaysanayna waxna waan baranaynay laakiin se nolosha inaan noolaano ma qurux badnaba inaan dhimanaa ka qurux badan because haddii ba nolosha intaan noolnahay aan arkeen waxyaabaha noocan oo kale waxa ka qurux badan inaan iska dhimanno marka dhimashada ma isdileeno dabaqeys kama tuureenne annagoo la dagaalayna farmaajo iyo caada qaatayaasha
ilaa aan heer maxkamadeed soo saarno sida gabadha hadda ay sheegaysa dhabarkaani ciid u saarno waan dagaalamaynaa ilaa ay keen ugu dambeeyo inta damiir lahoo dhanna markaan annaga bilowno way nagu soo biirayaan adiga hadda caawa waxaan kaa codsanayaa annaga 10 qof aan nahay magacyadeenan halkaan kugu soo gudbinayaa 10 qof ma badno xorriyadda Soomaaliya 16 qof keentay waa xasuusataa taariikhda waxaan ku sheegayaa ninkii damiir leh oo nin raga oo waxaas ka dhiidinayo 10kaas qofoodaan waan baxnay markaan xamar ka tagno videos ka soo duubayna contactiana kula soo sameynayna lacagta jaabkeena ku jirto inaysan 10 kun dhameen xitaa waan ku xaqiijinayna waxaan la dagaalaynaa khayr iyo farmaajo lacagta xaraanta ee aragtay hayo ayaan la dagaalaynaa waana ka guuleysanaynaa inta badan oo damiir lehna way nagu soo biiri doonaan insha Allah tuulaa ilaaho waa dumar bale ma garan waa maasan tahay qof kale xaqiya halow Cabdi Amiin igu jir hal mar inaan noo sameeyso 10kaas qofood dhalinyarada ay wadanka ku laabanayaan inaad cidii lagu soo biirayso oo garab la siinayso oo wadaniyad leh oo xurmadaas iyo gumeysigaas laga hortagayso inaad noo ololeyso oo aad noo raadisaa kaa doonaynaa ma garatay waa maasan tahay waaya way ku maqlayaan shacabkuna haya Cabdi Amiin daahir waa nin yiraahdo nin Cabdi yiraahdo marka waxaan ku sheegayaa niyo waxa meesha maanta keentay aad iyo aad ay u fiican yihiin laakiin niyo waxa maanta damiirkeena ana siin waayay Soomaali ya aan dadka muqdisho ka soo jeednanahay waxaan u soo joognay dagaaladii oo Mareykanka iyo xulafadiisa waxaan u soo joognay Ethiopia iyo 100 milyan oo soo galay magaalada Muqdisho waan meel baan ka marinay Soomaali waa la xoreeyay maalin walba markii Soomaali la xoreeyo aqalka waxay ku soo biishubataa war wadadkii wadanka dhacay wadadkii wadanka bilqaystay waa intu ka cambaarna ay Soomaali meel isaga dhigto maanta hadda waxaan aaminsanahay inaan dadkaas dadaan ahayn ay Soomaali sugayso marka Soomaaliya dadka u duceeyo markay libinta keenana ku raaca waa maasantahay la cambaareeyo in meel laga xajin xun la saaray waa dacaayada gumeysiga ha dhageysanin Soomaali taariikh ay leedahay laba reer xoog ugu soo dagaalamay waa la yaqaanaa waa madaxkiis nimanka la yiraahdo ma taqaanaa iyo nimanka la yiraahdo dhulbahante history ku jirta nimanka saddex soo raacana waa ogaadeen marka qof gumeysiga u shaqeeya ha dhageysan wuxuu sheegay Cabdi maya waxaan anagu niyada kugu dhisayaa in arrinkaas aysan soconaynin milisanaay waa maqashada koor inuu yiri Soomaali ma dirsanina waxaan dirsanahay ayr Ethiopia dirsan marka ninkii ugu weynaa markuu eragaas ku hadlay xanuunku arkay Soomaali marka adu ha dhageysan ay kurba kugu hayni halo qof kale ee ka soo hadlay Norway halo dooda horo gal asmeynaayo waxa waaye waa niman halo alaykum salaam dooda horo gal daar waa ku salaamay waa ka qaada dhamaanteen horo gal dooda daahir horta dhibaatada waxa u sababa farmaajo waxa wax ka qaban kara waxa weeyaan soco ku soco waa ku maqlayaa ku soco qof kale ku jira waay adiga u baahan laysay ku soco ha dhageysan barnaamijkayga aniga baqal codkayga soco okay daahir marka waxa jirta mataqaanaa farmaajo waxa weeye waa nin dambile ah horta Ethiopia loo dambayso dagaalka wadada farmaajo waa dambile waxa weeye wadanka dambiga uu ka galay in la daldala asaga oo mataqaanaa maxkamadda la marsiiyo ayaa horta mataqaanaa waajibka oo waxa wadanka uu ka galay mataqaanaa la marsiiyo horta Ethiopia loo dambayso Ethiopia waxba lagama hadlayn waxa laga hadlayay dadka anagu aan u dhiibanay xukunka iyo masiirka wadanka mataqaanaa marna u dhiibaya muwaadinka Soomaaliyeed Ethiopia marna dalka ku saxiixaya marka arrintaas waa mataqaanaa Soomaaliya ka jidiso baarlamaan meeshan ma jiro mataqaanaa haddaan la dagaalamin oo farmaajo la dagaalamin oo lagu shiidin dibadda inta waa ka badanaysaa waa maasan tahay halo qof ka soo hadlaya Sweden halo assalaamu calaykum wa calaykum iska dami codkayga aniga hay daawanin hadal دار عرس وصاحب فساد باتهاي أمد وفساد كده مساكين تدي هلو قف فسك عيتمي السوق هلو أنا عرس تودا كسر نوك مشكلة تودا هلو قدومي داير تودا كسر وفي عنا هي
صاحب والله أرنتن وواحد لقى حماضه وعوي أن برامج هذا وخطر قوم متصل مريض بكيرين وحوي أن كان فرماجة خير لها هنا لمن أسر وضيال ويان تصل مريض نظرت كذا كان يا جماعة أرنتي إثيوبيا يو حتى حلقي أنا نذكر كل حنا لو يجري إن إثيوبيا عليه دلك الصومالي وحلقي حتى أبراهامها أنا حتى الصومالي عايز أنا ما أخرج لي مرة دلك الصومالي هذه إن ضمير لا يكون جلس وحنا وحنا ولا أنت عيبان كجاران ودي لا تستمع صومال وما سنتاي هالو نوروي هالو فنلند هالو السلام عليكم دار علسو عليكم السلام ضد هروقل ايوه صح فتح وفي عنا ضد هروقل وقت يعني هيسوا جب ضد ويقول ديراتي هالو فرانسيسكا قفك صالي هالو فرنسا هالو نروي دار وارينا مقلشة دار وقصنا مكورة شغلان كوسع وكا قاعد كوسع ضد وقت يا قدام ماضي ضدك وبعد ديدنا ka taga ayo sa iyo waxa muuqdo farmaajo dambile wadanka uu qaranka u dambe ka galay hadda qofka alla sheegay taa waayahay كوسع أذان كل هلا يا قف كلام هلا يا أذان كل هلا يا كوسع أنا نور أذان النور وين كل هلا يا كوسع فرماجة والدبيلة باخر والدبيلة ما تقدم وخك علي فرماجة شيء محكمة النص صار لها واياي هلا كشقي محكمة شيء النص صار لها لو قال واحد دب واحد وضك هوك الأرض بدأ على شقيه وما سنتاي هلا وسويسرلاند هلا وسويسرلاند هلا وسويدن هلا وسويدن ضفرنا سوينا تيك إنك يا أبو صلاح تعيت معي هلو السلام عليكم وعليكم السلام كوسع ضادة أرني ما سنت برنامج كمركي جوريس الصوع ويكودي هيا كوسع ضادة كوسع waxaan niyo dadkan waxay iskaliin farmaajo iyo qeyr sheekadan farmaajo iyo qeyr way ku horeysay Soomaalidana dagaal uma yaalo waa inaa sida Falastiin noqonaa aska noqonaa raaciyaal waayo luqadii waa la bartay diintii waa la bartay af Soomaaliga waa la bartay marka waxaas oo dhan waxa u baahan tahay shaqo dheer waa 30 sano dagaalka socday 30 sano kale waa in dadka la baaraa waa sheeko dheer marka Ethiopia ka mid noqona saaxiib waa anaga هلو فكر بكي نيكاس هلو استراليا هلو استراليا هلو امريكا برنامج ku jira sama Soomaali Maxamed waxaan leeyahay waa inay fadhiga ka kacdaa ma garatay waayo dalkaani madaxdiisii siyaasiyiintiisa hore u baabaaday marka nimanka hadda joogan siyaasiyiin ma aha marka Soomaali Maxamed waa inay isku tashataa oo go'aan mowqif ay ka qaadataa arrinkan hadda jira waa maasan tahay Sweden هلو سويدن هلو مقدشو السلام عليكم عليكم السلام ضد هروسا مستر داير عبدون كسلامي hortarun ahaantii Soomaalidu waxay taqaanaa wax gadaal laga qaaqayliyo arwaakay hadii ay shacabka Soomaaliyeed ay run sheegayaan banaanbax sameeyeen dabaaldeg ka sameeyeen arwaakaas nin waliba Facebook ka soo qayla warwaakaas 5 qof oo isku xiran xitaa alla helo oo wax u bilowdo oo dabaaldeg sameeyso kulli dhamaantood Facebook inay ka soo qaaqayliyaan ama live ka soo hadlaan weeye habar kale ma hayaan runta ayaa ah in la dabaaldega laga hortag la sameeyo wax waliba mid markay ay u soo ku tagtay maxay taraysaa maxaan ku raadayay maxay taraysaa raali ah wax maxay tartaa wax waliba ka hortag in la sameeyo arwaakay meel laga dabaaldegay meel oo maxaan ku raadayay banaanbax laga sameeyna hal arka dhamaantood Facebook iyo wax ka soo wada hadlaan ruuxaas laga baxa hal laga hortagay Ethiopia nabad naga ma dhaxayso wax naga dhaxeeyo oo qorshe nabadeed ama wax naga dhaxeeyo oo xiriir ah ma laha waxaan u sheegaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood nin waliba inuu meeshan ka soo cawdo maaha inuu qaran ku istaaga waayo waa maasan tahay hello malto
waqtiga waqti badan kugu cadaadiyay qadka halow maarta qofka jooga halow haa dhammaan dadka waa salaamaya ma garatay maasha allah runtii waxaan oran karaa aniga arrintaas dowladdu way ku saxan tahay sababtaa dowladda iyada dalka maamusha iyadaana looga baahan yahay inay mashaariic iyo horumar u keento ma garatay marka waa mahadsantahay waxaa loo baahan yahay barnaamijkaasi uu sharci u baahan waa mahadsantahay halow sweden halow sweden halow sweden halow switzerland niyahow dalka siduu u socdo haddii ay dhalinyarada wax ka bedeli waayaan dalka waa la qabsanayaa waayahay meesha soomaalida hadda lagu boojeynayo tukaraq iyo meel aan waxba oolin dalka waa loo soo dirtay ma fahanti waa mahadsan tahay halow farasa halow calaykum salaam dooda horugal waa ka baxaya dooda horugal waan ku jiraa soo maa haa barnaamijka waan la socdo si fiican waan daawanayay waxaana odhan lahaa niyow maanta soomaali etoobiya tooska gacanta ugu dhigtay ayaan shacabka soomaaliyeed u sheegay weli naguma dhigine dad dhalinyarba ugu baaqaysaa inay dalkooda difaacdaan haa waxaana waxa ugu macan maalintu farmaajo qabsaday ayay etoobiya guulaheedii ugu waaweynaa gaadhay odhan maayo shacabka ha mudaharaadaan oo shacabka waa la layn laakiin waxaan leeyahay nimanka saraakiisha waddanka jooga gacantaa ku dhigaan farmaajo waayahay halow norway halow maraykanka waayahay niyo horta wadani dhabka tahay dadkan waa iska aytamayaan dadkaas waa laga raali gelinaya dib malacayd waa waxaa meeshu fadhiya ka soco leeyahay iyo ninkan khayra horta waa fashilmeen khayr laawayaal waaya wadankii waxay siiyeen dad iyaga ka liitaan etoobi 2013kii aan tagay iyagaa naga liitaan taleefanada waa dadamaan hataa anteena male waayahay dadkaas maxay maalgelinayaan waayahay ma fahantay meesha maraykanka ninka farmaajo laleeyahay wuxuu samayn jiray foomamka dadka u bubuuxin jiray hataa shaqo ma haynin waayahay qof maanta shaqo haynin oo weligiisa lacag helin haddii oo soomaali qof kasta oo dhahaan oo waa gubaatihiin qof fiican hadda waa iska aaminaa maraykanka meesha uu joogi jira waa qaflo dadka wuxuu u bubuuxin jiray dad soomaali yaraa joogta hataa baantuwa degan bes wuxuu u bubuuxin jiray dadkaas uu foomamka u bubuuxin jiray meesha un waaya markaan dadkan waa inay oo dagaalamaan sidii oo 2006kii 2007kii sida oo loogu buriyey meesha la leeyahay hadda gobolada oo dhan meelaha Etoobiyaanka Baydhabo iyo ilaa Somaliland iyo Puntland qof hataa Etoobiya magacooda qaali kara male jeelka lagu tuuraya waxaa loo dhiibayaa isha hadda sababaa loo dhiibaya marka waxaa u sheegayaa dadka daahir alisow aynaya daahir alisow waa nin sarf in la siiyo waay maanta wuxuu ka dhiidhicinayaa dadka Soomaaliya la dhiibay meeshii safrinkii oo waxaa ku jira qiirdiin hadda maraykanka camal qof kama hadli karo oo maalgashi waxaa laga buriyaa hataa DP World waa laga buriya iyo waxaan la mid ah markaan haddii oo hataa heshiis la galay heshiisyadii dhan waa burburinayaan Donald Trump markaan waxaan u sheegayaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo dad shacabkooda oo wadooyinka ka xiraya oo qaraha iyaga ugu dhiibaya nin oo shisheeyana wadooyinka ka xiraya iibkii oo in la sharfaheedna saas yeelaya waxaa leeyahay horta ninkaan farmaajo iyo ninka hadda la doortay oo waxba ahayn baarlamaanka inay maxkamad la keeno intaasaa kula talinaya dadka Soomaalina inay mudaharaad magaalooyinka ugu waaweyn Muqdisho ilaa oo inay ka sameeyaan mudaharaad saasaa kula talinaya waa mahadsan tahay kaas wuxuu noqonayaa qofkii ugu dambeeyay oo dooda ka qayb galayay tawfiiqda allaha waafajiyo Soomaali baana samaanteed iyo xumaanteed waxaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay dadkaasi mataqaana dalkooda u dhiidhiyaan difaacdaan si looga guuleysto cadawga iyo jawaasiista ay wataan Musimo halgamayaashii dalkiyo hankii shacabka dishay habar qaba lagu silmo
habar qabal lagu sirmow habar qabal lagu sirmow halgamayaashii dalkiyo hankii shacabka dishay habar qabal lagu sirmow habar qabal lagu sirmow waxaan la hilmaami karin bulshada weli hadal hayaan halaagii soobayo halkaad qalbi dhagax dhigteen halkaad qalbi dhagax dhigteen waxaan la hilmaami karin bulshada weli hadal hayaan halaagii soobayo halkaad qalbi dhagax dhigteen halkaad qalbi dhagax dhigteen halkaad qalbi dhagax dhigteen halkaad qalbi dhagax dhigteen waxaan la hilmaami karin weli bulshada hadal hayaan halaagii sooba iyo halkaad qalbi dhagax dhigteen داهر على سوح الله ضبش جدها ومرضنا ياس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إله توفيقنا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته